السلام عليكم. waxaa jirta oraah caan ah oo dad badan ay yaqaanaan oo ah laa yafil alxadiid ila alxadiid, qaniye ayaa qaniye kaa fujisa ama bir ayaa bir lagu jebiyaa. waana oraah caan ah oo loo soo daliishada markii radu ficil laga samaynayo shay ku habboon ficilka qofkaas uu la imaaday ama cidaas loo jawaabayo wixii ay samaysay wax u dhigmo. waana mid ay sameeyeen dhalinyaradan qadariyiinta ayagoo u jawaabayo jarmalka iyo wasiiradiisa kadib markay ku xadgudbeen qaanuunka dalkooda. ciyaartii u dambeysay ee dhexmartay Spain iyo Jarmalka. ورب الكعبة إني أعشق هذا الإنسان. جاي حامل أذن عامل حركة الألمان وبتطلع على الألمان وبقول لهم إذا عملتوا لنا هذه الحركة من منطلق الدفاع عن المثلية فإحنا بنقول لكم نعم هذه الحركة عملناها لما أوزيل تكلم عن الإيغور وتكلم عن المسلمين، ولما تصور مع رجب طيب أردوغان حرمتوه من المنتخب وأبعدتوه. دكتور حمود يرفعها ويتجول في المدرجات ويرد على الألمان بقوة. هذا هو دكتور حمود الذي لا يخشى أحد. قوي قوي يا مساعد قوي. arrinkaana uu warbaahinta kala duwan ay si weyn uga hadashay. haweeneydan waxaa lagu magacaabaa Nancy Faeser, wasiiradda arrimaha gudaha Jarmalka, intaasoo isku waafaqnay. haweeneydan haddaba shaqada ay qabato ee lacagta lagu siiyo bisha markay dhamaato waa in ay tahay ilaalinta qaanuunka Jarmalka, in wasaaradeeda iyo ayada ay ilaalinayaan qaanuunka Jarmalka. ciddii ku xadgudbaysa qaanuunkaas Jarmalka u yaalana ay la xisaabtamayaan. wasaaradeeda iyo ayadana ma yeelayaan in qof maalan banaanka Jarmalka hadda ka imaado oo dhaho arrinkan adinka qaanuunka aniga ma ogoli, haddaba waxba igama gelin, waan ku xadgudbi. kama yeelan arrinkaas, xabsiga ayaana la dhigay. laakiin ma qiyaasi kartaa haweeneydan in ay u safartay wadankeeda u jira 10 kilomitir si ay ugu soo xadgudubto qaanuun u yaallo shay cad oo wadankaas uu ku leeyahay arrinkan waa ka mamnuuc buunbuunintiisa. طبعا caalamkan wadan walba wuxuu leeyahay qawaaniin, yani xitaa xiliyada qaar waxaad arkaysaa wadamo ay ka jiraan qawaaniin macnaha cajiib ah oo xitaa mararka qaarkood muuqaalo YouTube laga sameeyo oo ay leeyihiin طبعا qawaaniin غريب wadan hebel oo kale. laakiin qofka imaanaya wadankaas qaanuunkaas غريبka uu ka jiro waa in uu ilaaliyaa, waa in uuna ku xadgudbin, haddii kale ciqaab ayaa la marin noocu ahaadaba. marka maxaad u malaynaysaa mamnuucidda waxyaabaha caqliga iyo fitrada bini'aadamka ayna ogolayn? arrinkan oo kale haweeneydan ay buunbuuninayso runtii yani arrinkan ani waa arkayay mas'uuliyiinta iyo طبعا dadka caadiga ah, cid walba sports ka hadasho, qof walba macnaha account kule nooc ahaadaba baraha bulshada ee muwaadiniin ah waxay ku ahayd arrin macnaha sadma, waxay ku ahayd ama kaag. yani haweeneydan maxay sidan u samaynaysaa shay macnaha wadankanaga mamnuucka طبعا wadan iska yar oo ilaahay burwaaqeeyay oo dhibaatay qalalaasa inay ka jirin qaanuunka wax walba yani sidaas loogu socdo, in qof hadda imaado si calan ah u dhaho qaanuunkan idin yaallo aniga ma ogol, waan ku istaagay. runtii waxay ahayd arrin macnaha aan la filaynin, waana arrin muujinayo qabweyninka iyo qadrasada iyo xaaladda nafsiga ah iyo isla weyninka ay ummadaas ku sugan yihiin. waxay ahayd runtii arrin aan la filaynin oo cajiib ah. yani aan dhahna tusaale ahaan annagoo raacayno qaniye ayaa qaniye kaa fujiso. mukhaadaraadka tusaale ahaan Jarmalka waa ka mamnuuc. ka waran haddii uu wasiir andahana nooc waadaba xitaa yaanan dhihin wasiirka arrimaha gudaha maalan dalkaas ay waxaas ku samaysay, yaanan dhihin wasiir arrimo guda dal kale hadduu u safro Jarmalka, wafdiga la socdana uu ka dalbado tusaale ahaan in ay xoogaa mid walba u soo qaato dhowr xirmo mukhaadaraad ee horowiin, kokaayiin, xoogaa calaq ah, wax macnaha uu iska sii qaato, kadibna ayagoo shir jaraa'id hayo ay ka dalbadaan macnaha hadda soo bandhigaan mukhaadaraadkaas, ay dhahaan mukhaadaraadka waa in qaanuun laga dhigaa sababtoo ah Hollandba waa ka caadi, haddaba sidaas darteed waa in laga dhigaa mid caadi ah. yani arrinkan maxay ku tilmaami lahaayeen, siday u arki lahaayeen? waxay u arki lahaayeen طبعا ihaano, in la ihaanaysanayo ayaga iyo wadankooda iyo qawaaniinta u taallo. annaga shaygan waa mamnuuc, waa lama ogolo, haddaba maxaad u buunbuuninaysaa? shaki la'aan xarfiyan waa midda ay samaysay wasiiradan yani Jarmalka ah Nancy lagu magacaabo, ayadoo u hoggaansamaysa طبعا sidaan sheegnayba isla qabweyninkaas. waxa arrinkan ay u samaynaysa waa annaga waxaan nahay macnaha sida ay leedahay aaliha, adinkana waxaa tihiin macnaha addoon raqiis ah, sida ay aaminsan tahay, waana sida ay galbeedku ka aaminsan yihiin. cid walbo macnaha xitaa kuwa leh waan iskaashanaynaa ama waxaan u nahay yani xulafaan la nahay, yani way la yaaban tahay in macnaha qof aanan galbeed ahayn wax ay amrayso uu diidaayo, way la yaaban tahay. haddii ay aaminsan tahay in macnaha ayada wixii la midka ah in ayna leeyihiin طبعا nama lihidin, waxaan nahay bini aadam xor ah, kir iyo kud ayaana idin leenahay. وماسك الصورة هذه في يدي اللاعب مسعود أوزيل. haddaba dhalinyaradaas qadariyiinta maxay sameeyeen ayagoo u jawaabaya qabweyninka iyo qadrasadaas ay samaysay wasiiradaas iyo xulka Jarmalka ee afka gacanta saartay؟ waxay daabaceen sawirro badan ee laacibkan طبعا مسعود أوزيل asalkiisa Turkiga yahay
kadibna afkooda ayay gacanta saarteen sawiradaasna waxay ku soo wareejiyeen ama waxay ku soo wareegteen meesha ay fadhiyaan taageerayaasha Jarmalka meesha ay fadhiyaan ayagoo muujinaya micnaha ama rad ficil ah sida ayagaba ay afka u qabsadeen هذا محي مسعود أدورتين مسعود أوزيل محي أدورتين وحي أدورتين مسعود وإن طبعا لبضا كون يسديدي طبعا كي وحي كده ميه واتي إن معناه حلقة كعيريين أيقو كو آذين أيو لاعب كان إن السياسة فرح لقلي إن مثلا تصال أهان المسلمين تيجوركا أيو آدو الدفاع جري وحوح بدن كهاد لجري سيدوكا له في الدنبية النظام كشوع قشينها وكلك عي مسلمين تا لكن أركان مؤجلين أركان أننا قلنا ما قصايا مؤجلين شينها حوجا حرير نقال أيانا قال دحية مشيت في الملعب كامل استاد البيت وماسك الصورة هذه بيدي اللاعب مسعود أوزيل المسلم اللي كان يلعب في منتخب الألماني وطردوه لأنه كان يدعم بتغريداته مسلمين الأويغور جايين الألمان يسوون لنا احنا كذي لا يبا سبوني في الملعب ما عليه لكن ان انا طلعت الحرة اللي فيني عليهم وطلعت حرة ناس وايد في المدرجات وصلت الرجال dhalinyaradan waxay qaadeen طبعا sawirka Mas'uud Ozil kadibna Jarmalka jamaahirta taageeraysa Jarmalka ayay la hormareen oo ayagana Jarmalka طبعا wajigooda aad ka arkaysa macnaha murug iyo aad ka arkaysa macnaha maskana iyo madalla sida ay uga xun yihiin sababtoo ah waxa lagu la ciyaar waxay dhahan nafs alwatr macnaha waxaad kula ciyaartay ciyaarta ayaga ay kula ciyaarayeen markii afka qabsadeen xorriyatul qowl ma jirto haddaba adinko Mas'uud Ozil xorriyatul qowl ma jirto oo waliba koob adduun idin keenay 2010 idin gaarsiiyay wareega afraad kaalinta saddexaad idin gaarsiiyay laakiin waxaad u adkaysan weydeen macnaha ra'yigiisa inuu cabiro shay laacib aan dagaalamaynin طبعا رأيجيسا أيادو أتكيسن ويدين أرنكاس كدب طبعا ما أركيسيت قف عربة أما حتى قف مسلمة أو عادية أو لصفا أما التاجر حتى حلقة جرمالكا يعني هذا مركي عيارين جرمالكا يو سبين مركي عيارين حتى رجع لقوم معناها معلقين عيارها كهضلة التلفزيونات معناها سيدا مثلا بيان سبورتس أو كلا قف والبناع هذا بقف يري قف وين wuxuu tamaninaayay Jarmalka in laga badiyo yani xitaa dad baa u ducaynayo laha ilaahu Spain waafaji in Jarmalka ka badiso اليوم المنتخب الألماني صراحة سقط سقطة أخلاقية يعني فعلا قذرة جدا الكل كان يتكلم عنه قبل بداية المباراة شوفوا معي تصور هذه الصورة واللعيبة كل واحد حط يده على فمه شوفوا معي ركزوا معي أعزائي المشاهدين اعتراضا على السياسة القطرية التي تجرم المثلية يعني أنا كشخصي أهان فيري أنا كشخصي كوبد مركي لقاها دلايا ولقي وحان تاقر سنة حلقة جرمالك من روميسان كرتا أركان لبضا كون يتوانكي لبضا كون يتوانك محيطة إلا يلبضا كون يعني مركان كادين كوبك أدنوك مثلا لبضا كون يلحذي إلا هيدا دور بلاد كار ككوبد أهان يعني معناه إن معجب كوها قابك وعياريان لكن ما أنت ما فيلا شيء لنا كوبد قابل سن أو أن كنا عبي إنه جرو دقيقة ولا بنا وحن تمنينا إن معناها لقى بضيع سببته معي تام سببته إن فطرة بني آدم كإله وأبوري ونو أقلين معناها إسلوينك ونو أقلين معناها قف بني آدم ما أقلا طبيعة بني آدم كإله وأبوري غطر صدا إسلوينك إيه أنا كافي عنها ما أقلا معناها قف بني آدم دبيعي إله عقل سيئي مجرى أو احترام هبا يراته بقول كيبا يعني عددا أنت سلاك أوهايو عد أو أركت معناها يسيس أما أركت إن أي واحد ديرتهي وأنا شيء دبيعي runtii markaan ka hadlaynay bilowgii koobka adduunka waxyaabihii aan lahayn hadii aan wax kale laga faa'iidin waxa faa'iido ugu filan wacyigan faafay macnaha dhalinyaradan waxay sameynayaan runtii waa shay markii hore la isdhihi lahaa macquul ma ahaan lahayn macnaha arkaan kale inuu dhici lahaa laakiin waa kaas dhacay arrin muujinaya runtii sidaan sheegnay in bini aadamku ayna jirin cid ixtiraamayso yani kuwa qadrasada u hayo عد إسلوين مركي لقى صوتك طبعا عدة دمير كذا ودكم داكم نقضوا انتهي قفل بود ضمير له أرن كان وديدي وحن صح حسستي قبي ويري قبيا معاصر سعودي سيدا ويري قبيا قاس وأنا لن ألوم من مات حسا إنما اللوم للذي فيه روحه أصلا قف كلا دلعينايا وقف ضمير له قف كلا معناها وحن سماه وقف ضمير كلا ولي الروح دي أي نوش هاي لكن ضدك انت أرن كان ما بدريمايان أصلا
24 saac aad arkaysaa si raqiisnimo inay ugu kala cararayaan dad ayagaba ama bini aadam u arag waxaa jiro qoraal yar oo tweet oo Twitter ku soo qoriyay kan Naif bin Nahar oo English oo ku qoro ah macnaha galbeedka ma waxay u maleynayaan qiyamkooda in uu yahay mid caalami ah qof walba laga rabo macnaha inuu dabaqo mid ayaa u jawaabay isla galbeedkoodaas ah aan filaayo Mareykan ma amsa يعني adoo galbeed ah wuxuu yiri waan ogahay in macnaha qawaaniintanada طبعا ayna ahayn heer caalim macnaha in qasabaan dadkan inay wada fuliyeen laakiin waxaan aaminsanahay ayuu yiri in qawaaniintayda iyo qiyamkayga sida uu leeyahay in qiyamkayga ay ka fiican yihiin qiyamkaada marka in bini aadamku uu diido dadkaas oo kale waa mid dabiici ah laakiin dadka aan damiirka lahayn 24 saac kaliya hamigooda uu yahay in ay isla sawiraan wasiir hebel safiir hebel ayaan la taaganahay dadkaas arrinkan ma dareemi karaan kamana dhaadhicin karta xataa aslan sababtoo qaamuuskooda kuma jiro يعني هذا تصال أهان دتك أجانبتي أما ضديو كله حرف كعين كأي حاء ذا كم رواقي كران معناها تقف أذك صومالي هنا دوك ده مجاعة أو ده أحمد ما ده كرا أحمد معناها حرف كحق قانون كسبك ومجرى أيجا مركا حرف ككرامة ده كرامة معناها إيه حرية إيه مضح بناني إيه عزة النفس قاموس كذا كم بجربه مركا ما بدريمي كان أصلا حتى هذا كمان أدعين كرت قلبيتك وحوار كامبو يعني إلهي يكون كان أبوري ولا شريك له يعني أنا وحبا شريك لليالي كان أيه أركان قلبيت كاس كوب كان دوك كدين عوعي وحوها فتح الفتوح وأنا شيء الحمد لله أنكو فرح صرنا هاي إن يعني مالين ومضى النظر كحروبي دونته gumaysigaas iyo qadrasadaas iyo islaweyninka iyo qabweyninka umadahaas madaxan aan uga istaagi doono sida ay umadeena wax badan madax uga istaageen ayagaana doortay in kubadda siyaasad iyo wax walba la soo geliyo yani xitaa ayaga dadkooda hadda macnaha ma wada xumo dad waxa jira wali damiir leh wariyaal ku way jiraan xitaa ciyaartoy hore markii ka hadlay macnaha arrinkan wala yaaban yihiin waxay leeyihiin Yurubiyaanku macnaha kubadda cagta waxay u bedeleen shay aad iyo aad u liito waxay u bedeleen macnaha shay siyaasad ah yani laab Ingiriis waxa arkay hore oo laha macnaha calaamadan iyo LGBT gaan iyo qawaaniintan iyo qaniisnimadan maxaa kubad ka galay macnaha maxaa ka galay maxaa isku xiray oo طبعا uu ku tilmaamay طبعا ahna shay siyaasad ah maxaa ka galay macnaha maxaa isku xiray marka qowmkaas waa qowmun faasiqun cidii u hogaansatana oo aqbashana runtii madalla wa maskana wa sagar ay waligeed ku jiri mawduucan intaanu ku egahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.